السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا شرفت لكم سؤال هذا البرنامج كنا ولا شرفته وإنكي صباح الخير education حافظ هيس لندن وأنا كهذين حقوق ده عرورت قربها عن كل لنا مريكان كيوروب تا استراليا كندا ورنت ضد بدن الصوماليين أي كعيارين أو كل يحيين حقوق ده كبد وأنا كدهني وكلمة التوحيد لا إله إلا الله عرورت مبران وكمد دالان marka taas waxay dhalisay carruurta in la kari waayo xaquuqda labaad walaalaha sharafta leh waxaa weeye carruurtii oo runtii waalidkii badana aanan haysanin labada waalidba aanan haysanin waalidka koowaad waxaa weeye oo runtii aad iyo aad carruurta ay ugu baahan yihiin waa aabbaha waa xaquuq oo carruurta ay leeyihiin inay mar kasta helaan ay la joogaan ay mataqaana la sheekaystaan magaalada la aadaan masaajidka la aadaan meelo la aadaan weeye markan waa xaquuqda koowaad ay kugu leeyihiin aabbannimada taas iyadaa carruurta qurbaha runtii waa ka dudsiinay oo ma haystaan sababtoo ay aabbihii waa biisi aabbihii taraag buu saaran yahay bas buu saaran yahay taksi buu saaran yahay xamaali buu ku jiraa waa mataqaanaa waa dhakhtar ama professional wax waqti carruurta uma hayo saas awgeed carruurtaannada badanaa qurbaha joogto waxay noqotay carruur aan gacanta lagu haynin marka walaalaha sharafta leh qof kastoo soomaaliyeed oo qurbaha ku nool waxaan ka codsanayaa war carruurtaada xaquuqdan ayagaa iskale ilaahana siiyey xaquuqdan carruurtaada sii walaalkay walaashay fadlu ay idin badan yahay hooyadii subaxdii waxaa laga yaabaa inay xamaali aado mataqaana hooyooyin yar oo carruurta haysta waa jiraan laakiin badanaa waxaa weeye xamaaliyaa la galay waxaas arkaysa carruurtaas loo dayacana xuquuqdaas oo dhan loo dayacay waxaa ka mid ah dadka afrika jooga oo runtii dad nala dhashiya oo in la caawiyo oo mataqaana loo kaalmay u baahan laakiin tii waxay keentay carruurtiin inaan hilmaanno marka walaalaha sharafta leh carruurtaan xuquuqdoodaan u soo celino carruurta qurbaha waa dayacan yihiin waa carruur dhibban waa carruur mataqaanaa xaquuq badan ay ka maqan tahay war aabba waa ku baryaa carruurtaan xuquuqdooda u soo celi ilaahay waa ku weydiinaya maalinta qiyaama wallaahi ilaahay waa ku weydiinayaa weliba khaasatan aabbayaalka xaquuqda ilaahay waa ku weydiinayaa war lacagtaan faraha badan oo cayrinaysa wax weyn uma taraysa carruurtaan lacagtaan faraha badan oo afrika u diraysa guryahan faraha badan afrika ka dhisayso beeraha iyo matoorada iyo waxaanad gadayso walaal baloodyada iyo businesskaas afrika ku leedahay wallaahi waxba kuuma tarayaan maalinta qiyaamo waxaa kuu taraya waa cunug fiican nabigeena suubane sala allahu calayhi wasalam waad og tahay wuxuu yidhi sadaqatuljaariya waa saddex waxaa ka mid ah yacni alwaladu saalix yadcuu lah qof cunug walada oo saalixa oo dhashay gabarh iyo wiilba oo diinta ku barbaarisa xaquuqdooda aad siisay oo kuu soo dacooyo carruurtaas ayaa runtii ku anfacaya xaquuqdan walaalkay carruurtaada u soo celi fadla waa ku baryaa carruurtaan xaquuqdaada u soo celi marka xaquuqda kale oy kugu leeyihin waxaa weeye aad naftaada ilaali oo naftaada ka warqab oo naftaada caafimaadkeeda fiiri hadda waxaan joogaa meesha baagaan joogaa orodaan ku jiraa oo runtii mataqaana exerciseka caadiga routiinka ku jiraa mataqaanaa qof soomaaliya ama rag soomaaliya oo exercise suubinaa ma arkaysid badanaa way yar yihiin ama wiigii baa laga yaabaa hal mar inay suubiyaan yacni marka waxaad arkaysaa qofkiisu u ordaya aabbihii u ordaya dhag waa soo dhacaya carruurta markaan xaquuqdooda meesha ku baa ilaa carruurtan aabba ay u baahan yihiin mataqaanaa meelaha geeyo oo la sheekaysto oo meel kasta ka warqaba oo diintooda ku barbaaray u baahan yihiin aabbihii asagay hadduu mar kasta ama tagsi ceyrinaya ama mataqaana caafimaadkiisu ka fikiraynin cunto fiican cunayn waa soo dhacaya markaad soo dhacda marka meeshaa ku baaba'ay xaquuqdaada carruurta xaquuqdooda ku dhamaata walaalaha sharafta meel kasta joogtaan fadlan videogan sii gudbiya meel kasta u geeya aabba kasta hooyo kasta u geeya oo meel kasta joogto runtii carruurtan waa dayacan yihiin wallaahi carruurta yurubta aan ku dhalin walaalaha sharafta leh aad iyo aad bay u dayacan yihiin laakiin nasiib darro waxaa weeye ma dareensanin annagu ma dareensanin shilmaadkan yarkaa noo muuqdo africa businesskii waxaa noo muuqdo waxyaalahan suubinayna dadkaas afrikana waxa biso arkaan waxaa weeye wiilkaydii intaasuu guriyuu dhisay gabadhaydii intaasaa i dhistay mataqaana alxamdulilah guryahaasaa noola dhisi biilkaasaa noola soo diraa wallaahi walaalkay cunugaada aad dhasho cidda xaquuqdeeda ka fikiraysa mara ilaah baan kugu dhaarshaye hooyada iyo aabbahaad adduunka ugu jeceshahay waxay jecel yihiin ayaga kuwii dhaleen ay ka jecel yihiin carruurtaada kuwii ayaga dhaleen ayay ka jecel yihiin carruurtaada agowdee hooyooyin badan oo annagana dhalay oo carruurtooda
يعني كجعل عرورتooda waa jiraan dadka la isku madaraya laakiin hooyooyin fara badan waxaan aragnay ileen ani bulshadan ku jira saan idin sheegay hooyooyin fara badan dhahaya caruurtaada Yurub ay ku joogaan maxaa dhib ay leeyihiin annaga meeshan ku dahin Afrikaan joognaa aabiyo saad dhahaya caruurtaana dhibka haysta idinka marxaati ka ana marxaati ka fadlan caruurtaada xaquuqdooda u soo celi aabba xaruuqada u soo celi caafimaadkaada ka fikir exercise ka aad ilaahaygaada ka baq الله سبحانه وتعالى ما نتقي أبو كويدين سؤال ديار ونقو توحيد ما تقانا أسو علي مرك حقوق الله بعد أنكالين وحوي بني ماذا عرورت حد ريمينا عافمات كادر إلالي تاسع مهمة هو يا أدينا حمالك أنت أرد اسمعنا عرورت حقوق دود سؤال هو ينمي أسو علي بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته